وعلى أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. marka koowaad dhammaan ka soo qayb galayaasha xafladan maadaama waqtigu kooban yahay gobashan xisbiga mid qaran ay noo dhigeen oo gudoomiyaha xisbigu uu hogaaminayo xubnihiisa iyo taageerayaashaba waa idin salaamaya. assalaamu alaykum wa rahmatullahi. salaan kadib waxaan marka koowaad ka hambalyeynaya aasaasidda iyo xoogga iyo xoolaha iyo fikirka lagu baxshay in xisbi u taagan afkaar oo professorku iyo inta kale kala shaqeysaba ay maantay cali masaarkiisii aan u taagannahay waan ka hambalyeynayaa boqolkiiba boqol. waxaa xubin dhan oo naga dhimanayd haddaan axsaabtanahay ayaa noo soo buuxsantay. haddii maraykanku ay rag kale noo soo hormariyeen professoradii hadday maanta noo yimaadeen runtii aad baan ugu faraxsannahay. wasiir hore khabiir waayo arag waxaan rajaynaynaa in wixii dadkii maraykanka hogaamiyaashii nooga yimid wixii ay naga hadleeyeen in noo sixi doonaan rajaynayna. intaas ka soke xisbi aasaaskiisu ma sahlana, waa runtii arrin culus waay. dee waddan dimuqraadiya oo weyn qof ku soo noolaana annagu baasha waa ku sii simaynay ayaan baan sii celcelinaynay 6 sano u dambeysay xisbiyaan ka shaqaynayn. laakiin waddan dimuqraadiya oo wadamada hadda adduunka ka tilmaamana inkastoo nin wareersan u haysto waddanka hadda uu qabsaday baan ka wadaa waddankaas yacni khibradda xisbinimo iyo waayo aragnimada halkaas laga keenay in bulshadeenna lagu duro 50 sannadood ayaan la'nahay xisbi wax ka hadla. 69kii Oktoobar ayaa xisbiyadii la toogtay maalin cad. 50 sano ayaan isku dhex qaladna. xataa waxaan dareemayaa dad xisbiye samaystay inay kala fahmi la'yihiin war dowladda waxa la yiraahdo iyo xisbi isbeyska u dhaxeeya in la wada shaqeeyo maaha. in la tilmaamo haddii xisbi dowladda ka tirsanaa tahay dee dowladdaasaaba la jirtaa, laakiin haddaad xisbi tahay bannaanka ka taagan oo afkaar raba inuu halkan keeno haddii aanba raalli ka ahay sida wax u socdo xisbiba lama sameeyeen. professor cabdinuur maantay hadduu raalli ka yahay sida wax ku socdaan la taliyaasha farmaajo ka mid noqon laha. laakiin in wax ka dhiman yihiin oo wax lagu dari karo oo dalkii jiha kale ay u socdaan oo jiha ka fiican uu rabo inuu u tilmaamo ayaa xisbigan loo sameeyey. taas macnaheedu marka aniga ilama ahan yacni mucaaradada waxa laga fahamsan yahay. mucaaradeenni waxaa weeye bahal Itoobiya fadhida oo hub wadata oo wax dishaa loo yaqaan. dadkeenu weli mucaaradada civilianka ma xamili karaan. aragtida civilianka ee ka duwan kooxda markaas talada joogta way dhibsanayaan, dib bayna u arkaan. marka professore noo soo dhawow. annagu xisbiyo meeshaan ka samaysnaa waan nahay ragga adiga kula midkaa oo maaragtay aqoontaada leh. runtii waxaan aaminsannahay inay dalkana wax ku kordhinayaan, saaxada siyaasadeed ee dalkana space uga bannaan yahay. yacni dadka Soomaaliyeedna ay uga aadi karaan inay wax baraan oo baraan dhaqanka xisbinimada maadaama 50 sano aan xisbi la'aan ahayn dalkaana uusan ka shaqayn. 50 sano qofkii 17 sano jiray wax ma dooranayn. marka lagu daro 50 sano 67 sano qofka jiraahi weligiis Soomaaliya gudaheeda sanduuq dimuqraadi doorasho qof iyo coda kuma ridin. taas macnaheedu waxaan nahay mujtamaca nool oo dhanba mujtamac tarasubaadkii iyo mukhallafaadkii dictatorshipka ka haray oo maskaxdiisa ka buuxaan nahay oo aan u bislayn xataa axsaab iyo ra'yi kala duwanaansho iyo arintaas. waxaan rabaa inaan hadalkayga ku soo koobo dalka
وحكم كيسو وفدرال نظام كيس سياسيين دستورك وحكو قرن إن حزبية بدن لقاته وحلبانا ذي كل الوصو دورته وحنارك إننا dadka talada haya oo raga khiyaari halkan jooga ilaayeen halala shaqeeyo federaalkiina waa diideen oo dastuurka ku qornaa waana burburiyeen burris bay ku wadaan xisbiyadiina daraad baa la dilay guddigii soo baxay oo sameeyeen guddoonka golaha shacabku annagu aan ka tirsannahay xisbiya diid waxay soo wadaan waa xisbi diidnimo awalna federaal diidnimo ayaan hayn marka xisbiyada waxaan rabnaa in la isku tago dalkan ma sii xamili karo in sida diyada loo qaybsado xukunku uu noqdo qabiilka waxaan ku naqaanaa in diyada iyo hababka dhaqanka iyo waxaas lagu xalliyo laakiin ma sii xamili karo meel fiican baana ka timid waxaan isleeyahay dalkani wuxuu aadi doonaa dictatorship dariiqii dictatorshipku qaaday aniga aragtidaydan ka hadlayaa dariiqii dictatorshipku qaaday dariiqa kala aragti duwanaanshaha inaan la xamili karin buu qaaday dariiqa wuxuu qaaday qofkii iga aragti duwan waa dilaya oo rag lagu dilay xisbigoodii halkaan la fadhiyaan haddana ay ka socoto goboladii iyo wixii oo dhan haddaan qaadanayn waa dil marka arrintaasi runtii foolxumo weyn baa meeshaan ka taagan marka professor soo dhawow xisbiga mid qaran sida magaciisa ka muuqata hal qaran oo xoogan insha Allah oo ku xoogan dastuurka ku xoogan cadaaladda mar hadii dalxa laga bilaabay professor dalxa cadaaladii waa bilaabay mar hadda hadalkay bilowday xisbiga cadaaladii waa bilaabay xisbi nooc yani mid qaran inuu qarankana noo mideeyo aragtidiisuna ay cadaato oo axsaabta aan lagu qaldin axsaabta nacamlaha aan lagu qaldin xisbi aragtidiisa banaanka soo dhigay aad baa u maasanta